بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 500 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجه والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 21 bishii 8 Shacbaan sanadka 1442 isla markaana waafaqsan 3 bishii 4 Abriil sanadka 2021. waxaanu dhammaynay mowduucii u dambeeyay ee ku saabsanaa nabiga tacaamulkiisa iyo habdhaqankiisa iyo siyaasadiisa. waxaan jeclaystay inaan mawaadiicdan cusub aanu bilaabayno laba arrimoodba. qodobka koobaad, in mawaadiicdeenu ay ku saabsanaato bil barakaysan, mawsim khayr badan oo aad iyo aad u qiimo badan oo ramadaana yaa nagu soo foodhayaa, inaanu ka dhigno cashiraheena iyo mawaadiicdaanu ka hadli doono hadduu ilaah yidhaahdo wax ku saabsan ramadaankaas, fadliga bisha ramadaan, fawaa'idda ay leedahay, dadka maaragtay cudurdaarka leh, axkaamtiisa, waxyaaba noocaa inaanu ka hadalno. waa wax mar kasta laga hadlo, in badanna waan ka soo hadalnay intaanu axaadiista wadnay. hase ahaatee wax laga dhergaayamo in mar kasta lagu celiyo waa arrin muhiima weye. qodob midkaas weye, inaan midaas aanu qaadano. qodob kale labaad, bisha ramadaan cashirkeena inaan sii wadno, maadaama dadku badiba lockdown lagu jiro, dibad iyo gudaba in badan laga yaabo dhaqdhaqaaqu inuu yaryahay oo cashiradii lasu iman jiray iyo lifekii iska yaraado. marka inaanu intaas halkaa xadiidan subxii isxusuusinayno bisha ramadaan inuu noo socdo insha allahu tacaala. inta markaan ka gudbo, maanta waxaanu qaadanaynaa cinwaan, waxaanu ka dhigaynaa fadlu shahri ramadaan wa fawaa'iduhu. bisha ramadaan fadliga ay leedahay iyo fawaa'ideeda. fawaa'idda ay bisha ramadaan leedahay ee khayriga iyo fadligeeda ayaanu ciwaan ka dhiganaynaa. kadib aan markaa qodobada fawaa'idda aanu akhriyayna ayaanu qaadanaynaa. intaa markaan ka gudbo, xadiidkan sida asalka noo ahayd inaanu ku bilaabano marjica iyo meesha xadiidka aan ka soo xiganayno iyo cidda xadiidka soo saartay. xadiidkanan hadda aanu soo xiganayno eenu maanta qaadanayno, imaamu tirmidi baa kitaabkiisa sunanka ku soo saaray, waana meeshaanu ka soo xiganayno. sidoo kale ibnu maajahna wuu soo saaray, waana xadiid saxiixa weeyaan. sheekh albani raxmatullaahi calayhi sunanu tirmidi iyo sunan ibnu maajah labadu ku saxiinayaa. sunanu tirmidi raqamkiisu waa 682 wey, sunan ibnu maajahna waa 1642 wey. idan xadiidku waa xadiid noocaas oo haabida wey. intaa markaanu ka tagno, abu hureyre radi allahu tacaala canhu wa ardaah ba wuxuu leeyahy, rasuulka ayaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, bishan ramadaan fadligeeda isagoo ka hadlaya: idaa kaana markuu ahaado awalu leylatin, habeenkan ugu horeeya min shahri ramadaan, bisha ramadaan habeenkeeda ugu horeeya markuu galo, sufidad waa la silsiladaynayaa, waa la xidhxidhi, xadhigga lagu adkaynaya ashayaadiinu shayaadiintii, iyo wamaradatuljinni, jinka kuwooda madaxa adag ee fasaadka badan, intaaba waa la silsiladaynoo xadhkaha maarata luqumaha iyo lugahaba lagaga xidhi. wagulliqad waan la xidhahayaa abwaabu naari, naarta albaabaheedana waa la xidhahayaa, falam yuftax minhaa baabun, albaab laga furhaya male. waxaa kale wafutixad, waxaa kaloo la furi abwaabuljannati, jannada albaabaheedana waa la furhayaa, falam yuqlaq, la xidhi maayo, minhaa xaggeeda jannadii baabun, albaab laga xidhi maayo. qodobka kale, wa yunaadi, waxaa dhawaaqahaya munaadi, mid dhawaaqahaya fii kulli leyla wey, habeen kaste waxaa dhawaaqahaya mid dhawaaqayo malaga, oo wuxuu leeyahay: yaa baaqiya alkhayri, khayrka ninka dalbahaya raadinhayo aqbil, soo qaabil khayrka
iyo wanaagga soo qaabil. wayaa baaqiya shari sharka midka raadinaya oo aqsir ka gaabso sharka ka istaag. walilaahi alla wuxuu u sugnaaday cutaqaa kuwa cutaqoo laga xoreeyey min annaar naarta laga xoreeyey. wadaalika arrinkaasna kullu leylatin habeen kasta ilaahay cutaqa ayuu leeyahay. ikhwat alislaam waliimaan, xadiidkan waa xadiid cadiima weeye oo fadliga ramadaanka uu leeyahay iyo fawaa'idiisa ka hadlaysa. waxaanu leenahay kow, bisha ramadaan fawaa'ideeda kow waxaa ka mida tuftaxu abwaabu ljinaan, jannada albaabaheeda la furhayaa. wa tuqlaqu abwaabu niiraan, naarta albaabaheedana waa la xidhayaa. wa tusafadu maradat ljinni washayaaiin. intaasoo dhanba waa fawaa'idiisa weye. yani ramadaanka jannada albaabaheeda la furhayaayo la xidhi mahayo, naarta albaabaheeda la xidhahayaayo la furi mahayo. shayaadiinta kuwooda madaxa adag baa la silsiladaynhayaa. habeen kasta malag baa dhawaaqayo khayrka qofka rabow khayrka soo qaabil buu leeyahay. maaragtay sharka ninka u jeedo sharka ka gaabso, habeen kastana ilaahay kuwa naarta laga xoreeyuu leeyahay. idan ikhwatii fillaahi, xadiidkan waa xadiid cadiima wey. culammadu waxay dhahaan xadiidka calaamaad iyo astaamo iyo ikraam iyo hadaayaad min allahi caza wajalla ka timid licibaadihi, addoomihiisana u hadiyeenhayo muslimiinta mudiiciinta ayaa xadiidkan lagu sheegay. hadaayaad, hadyooyin iyo calaamado aada u qiimo badan oo hadyad ilaahay xaggiisa ka timid oo dadka addoomihiisa adeecsan uu alla u soo hadiyeynaya bisha ramadaan. ilaa 5 hadyad weeye. waxaa hadaayaadkaas bisha ilaahay uu muslimiinta u hadiyeynaya waxaa ka mid a awalka habeenka ugu horeeya ramadaan uu galo sufidat shayaaiin. tafsiidku waa xadhig wey, waa la xidhayaa shayaadiinta iyo maradatljinni. maradatljinni iyo shayaadiin maxay kale yihiin? qole waxayna maradatljinni waa shayaadiinta kuwooda ru'asada u ah. qolena waxay leeyihiin maya maradatljinni waa kuwa sharka aad iyo aad ugu xeldheer sharka iyo fasaadinta dadka wey. idan hadiyadda koobaad ee ilaahay uu muslimiintiisa usoo hadiyeynahay bisha ramadaan, shayaadiintii madaxa adkayd iyo kuwa fasahaadka aad ugu xeldheereeyaba maarta ugu xeldheeraabaa silsilada lagu xidhayaa. iqlaaqu salaasil iyo iqlaaq labaduba silsiladaha waa lugaha waxa lagu xidhaa layihahda. iqlaaqana waxaa la yihahdo maaragtay aqlaalkana waxaa la yihahdaa gacmaha, inay gacmaha la xidho luqunta lagu xidho. idan gacmahooda iyo lugahoodaba waa la xidhaya. waa hadiyadda koobaad ee ilaahay subxana wa taala si ay sharka ay muslimiinta oga badbaadaan oo in badan u faa'iidaystaan. hadiyadda kale labaad ee ilaahay muslimiinta usoo hadiyana bisha ramadaan, naarta albaabaheedii baa la xidhayaa. hal albaab oo laga furhayana male. hadiyadda kale saddexaad, jannada albaabaheeda la furhayaa, albaab jannada oo la xidhayana male. hadiyadda afraad, habeen kasta waxaa dhawaaqahaya mid dhawaaqahaya. lafdiga musnad imaam axmed ku sugan kaa dhawaaqahaya caddayntii maaragtay inuu malag yahay ayaa ku sugan. wa yunaadii fiihi malakun baa ku qoran yaa maaragtay lafdiga xadiidka imaam axmed musnadkiisa, wa yunaadii fiihi malakun. idan habeen kasta waxaa dhawaaqi mid dhawaaqahaya oo wuxuu leeyahay yaa baaqiya alkhayr. riwaayaad kale yaa daalib alkhayr, khayrka ninka dalbahayo khayrka soo qaabil ama khayrka haluma u kaalay. sharka ninka dalbahayowna sharka ka gaabso ama ka istaag. qodob kale shanaad ee hadiyadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u hadiyanayay muslimiinta, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay habeen kasta oo ramadaanka cutaqa naarta laga xoreeyey. habeen kasta oo ramadaana ilaahay naarta kuwa ka xoreynaya, cutaqa naarta laga xoreeyey. idan ikhwatii fillaahi, xadiidkan xadiid cadiima weeyaan, fawaa'id aad iyo aad u qiimo badan. war haddii shayaadiintii kuwooda khatartaha ee fasaadka badnaa ee muddo fasaadinaya haddii la qabto, naarta albaabaheeda haddii nalaga xidho, jannada albaabaheeda naloo furo, malagoo malaa'igta ilaahay ka midana wadiifo iyo shaqo looga dhigo habeen kasta oo ramadaana inuu dhawaaqo oo dadka yidhaahdo war ninka khayrka rabo khayrka dalbahayo khayrka u kaalay, ninka sharka raadinhayona sharka ka istaag. habeen kasta oo ramadaana hadduu ilaahay ummado dhan uu naarta ka horeynayo,
فوائد عظيمة ويا إخوتي في الله، فوائد آذية فائدة بدنوي. لكن أيام ضراء أنت سو خير إلهي وهديد وكدقها يا رمضان قفك لقرم مريي ونوحا صلى الله وافجين وخساروي. هكذا العلماء أيدهن حديثك وحكى الله لقى قاضن هيا بني آدم كإنه مارتي قلوبتي سنة لبقوا قيب سنتون مثل حاد وسجرن قلب خير كتير أو خير هذين هيا إيا قلب الشر أو شر هذين هيا لبضاس قيبود وي سادرتيد بملق وحكونا واقع إنك خير كرهدين هيو قلوبت خير كرهدين إزاي سوى قابل خير قلوبت الشركة أصعطين شركة كإستاك إذا لبضا قلبي ويان بني آدم وقلوبت لبضا سأكل بحضا قلوب خير هذه هي قلوب شر هذه لبضا قيبود وي. إلهي سبحانه وتعالى وحمد سنة إن بأسماء الحسنى والصفات العلى قلوبتنا إنه كردق قلوب خير هذه قلوبت خير كرهد سنيسة ملق كالايا أوليها ينو إلهي قلبي أن كردقه قلوبتا شركة لله كإستاغنا إنه إلهي نقر مريو وما أرتي وصبح من أقول دارين. إذا إخوتي في الله كرامات كافرها بضل إكرامك وإلهي إكرامنا ابن آدم مسلمين مضيعين رمضان كبشارة قوت لو بشارينها إن الشياطين تكوض أضد كاي فساد كبنا الله حدي لسلسلة ذين نار البابه ذن الله حدها يوم لفورين جنة البابه ذن الله فرها يوم لحدين ملك وملائكة كم ذهبين كسر دواقها يو وقفك خير كربانا وكبرين قفك شركة وصعدنا وله كيستاك إلهي هبين كستينو نار تكحرين هيو إن بدون مسلمين تيسا كم إلهي سبحانه وتعالى هنقدر كوا نار تلقى حرين هي وحرب مركا إن النفط إذا نفتي نبى كبريو ولا الله مسلمين تيعد كستو حديث وقالوا بشهر رمضان وفضل قبضان بنوصل سعوة مانتا شعبان وكوي لباطن سيدا أنك عن حساب سنة إنه قولا كلنا واللباطن بيليين إذا وحا كاهري هذا كوي لباطن ترادي وحا الله وحا ويان سيديد بري إن سقال لباطن كل ما تلقى يابا هدي أصدن كل ما يسينا وحا ويان سقال بري باكارد هذا قوليها لباطن كترسان هيانا صدن هذا كل ما تتبين بري وي وحا وحا هذا سقال لباطن كل ما تنا سقال بري وي markay inuu qofku diyaar garoobo hadduu ilaahay subhanahu wa ta'ala nabad nagu gaarsiiyo bisha ramadaan uu kugu gaarsiiyo inaad u diyaar garoodiyood ka faa'iideysatid oo noqotay kuwa khayrka leeyahay khayrka kuwa raadinayo soo qaabila kuwa khayrka qaabila kuwa malaga u yeedhaya aqbala inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala naga dhigo qof kasto waxaad ramadaankan u qaabishaa waliba xanuuna iyo waba iyo corona iyo wax badan baa jira رمضان دم إنه كصامري ورا ما هيسي كأنما أظن رمضان دم بجارين إن هذا عبادة ست وأنت كران كذا هذا مارتي صون كلا إلالية هاي هذا معاصي أو مارتي لقى جاب صداي هاي هذا تاي صدقة دي خير كلا بحين هاي هاي هذا قرآن الآخرين هاي هاي هذا تاي صدقة لا لبح هاي هاي ذكري أذكار الآخرين هذا هاي أنت صور دمبا وحويان إن لقى فايدست علماء waxay dhahaan marka xadiidka waxa kale oo laga qaadan الحث على اغتنام اوقات الفضل والخير اوقاتها فضلك يا خير كله ان laga faa'iideysto in la isku booriyo بعمل الطاعات iyo wal bu'd عن المنكرات iyo fogaansho laga fogaado xumaatiyalka iyo wixii munkar laga fogaado khayrkana lagu dadaalo ayaa xadiidka laga qaadan intan oo maartay bishaarada markii lagu sheegay macnaheedu waa jecelaysiis iyo booris awqaadaha fadliga badan laga faa'iideysta maartay amal daaca looga faa'iideysto khayr lagana fogaado xumaatada laga fogaado ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanayna bi asmaa al-husna wa sifaat al-ula inuu xaqna tusnuun irtaaq xaq raacitaankiis hal marba xadiidka akhrinaya lafdigiisa الحديث 500 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وابن ماجه والحديث صحيح. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.